سوق وين مد إنه هاد مغرب كبعد يعني هاد حولي مغرب كبعد واي أنا إسلا سواي وحولاس ملهن إن وحنا وحواي وحنا أساس أم بنينو هدي اللي فيرين حقيقة وايو وحنا كل لو سدح إلا يطبن عندهم وحلا سيسنا معنا عشان مرة واحد سوى دقدق مركز عن إن بحثت أو أنا مثلا لقى له هرمرو مش واحد يقول عن مش أنا مش أكبحث أو نبنان كيس كتاجن عته ساس أهانو وشيء مركز أنا أنقيميها تأثير أسداي حاول تضرب شديدة الإسلام الجاري قف كان اللي قف واحد وما أنا سأسوي سعتين سأسوي كريستال دقدق عندنا أي كلام ماتان waxa uu kaga duwanaa eedeysanayaasha kale inuu ku tababartay gudaha Muqdisho isaga oo daawan jiray dilalka ay geysanayaan dhagarqabayaasha kale laakiin waxa uu qirsan yahay in shaqadiisa ay ahayd dabagalka xilligii uu ku noolaa Diisoor TV-ga dawladda ayaa fursad u helay muuqa Shucayb oo magaciisa afgarashadu yahay Axmed waxa uu ka sheekeynayaa mid ka mid ah ficiladii ugu halista badnaa ee uu galay intii uu ka shaqeynayay dilalka gaadmada ah Dhibana Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka mid ah ciidamada xoogga dalka sidoo kalena ahaa mid ka mid ah markaatiyaashii maxkamadda la hor keenay ayay go'aansadeen inay nolosha dhaafiyaan Shucayb iyo Ilkaas oo maqana ah waxyaabaha fadhiga looga diiwaan galiyay Dhibana Cabdiraxmaan ayaa ka mid ah in ay dhaheen waa maalintii kuugu dambeysay nolosha dunida kuuguna horeysay ilinka aqiro 14 bishii shanaad 2018 xilligaasi oo ay dhaawac u geysteen waa kan Shucayb oo ka sheekeynaya qatartii uu kala kulmay mid ka mid ah ilaalada qaranka soo aadnay gacanta hor anaa lahaa laba xabba birti ka dhacdaniyo teeteeda watay dhay markii laba xabba dhahday ay isbalaqono jab waa joogsatay ninkii marka saanu kursi ugu fadhiyay waxaan filaa horta xabadahaas inaysan niyo horta meel macaan uga dhicin haday meel halis ay ku dhici lahayn waxa waay wax un la jiri lahaa mugtaa laakiin si meel oo hadda la leeyahay oo xanuun mise dhanaan ay uga ma dhicin bas ilaa amarkiisu markii aan saas uga baxay saas soo galay markii saas soo galay inuu iskaga leexday oo ka cashay 300 400 500 ma xasuustay uu asna riday ninkii marka ilaa amarkiisu asna wax uu waa gaareen koodhay markii uu ilka cashay ku riday wax way gaareen birtii soo qabsaday marka aniga meesha taagan mugtaa أو حاك ورهلا دا قد باور تام تاجنا دم كورهلا حبون إن منها ما إيجا مرتمشة ما مرتمع قان معنا وحي كسري وحي كلوا فهم مفتح ولا شو أنا أدري ما كذب بود مركي تقول كدروالكم الأسعود نعم الأسعود الأسعود كان وتوسيه مركي صقل باور كهلا وضع ساسو ده أنا دروال مين يلقى عشان دروالكم ما ويلك دروالكم مركي ساسو نقول جرا بس باورك لقاado Maxamed Cismaan Axmed Cumar oo magaciisa afgarashadu yihiin Cabdiweli Atam iyo Pakistan ayaa inooga sheekeynaya kaalintiisa shaqo waxa ay keenay Ilkaas wuxuu uu keenay boole marna kawaanka marna dhankaanay daabla oo suuqa qandalka oo soo baxay mootofeekona mootada waa iska dhigi bayantan sidii oo mootooyinka loo aruuriyay عادي موتدي وتاكسي واحد عادي راعي جري لا تساي كيني جري marka iyaga siyana masaajidka inta ka mid waa iyaga ku siin jir ay soo raaci jireen shaqada markay soo dhamaatana waa ka soo qaado asaga u siin jir Ismaaciil Maxamed Aways oo magaciisa afgarashadu yahay Yaxye waxa uu sheegay in dhammaan ay fashilmeen dilal qorsheysan ee uu qayb ka noqon lahaa inta markii la helo kadib waa la waanay maalin kadib beesiin ugu dambeysay waa la helay habeenay ahayd maqrab markii la soo dugtay kadib meeshii markaa tagnay oo irtijaadka kadibna meeshii ayaan howlgalkii in la fuliyo rabi howlgalkii istulooyinkii iyo wixii ka tibeen kadib anaga wax ka soo tagnay wax ka soo cararnay meeshii xoogaa yar buuqeera ka meeshii wax ka soo kala cararnay kadibna anagoo carreena ayaa ciidamada dawladda dhaxda u galnay saddexda eedeysana ayaa ka wada sinaa sheegida magaca Ilkaas oo ah maamulka qarsoon ee ka hoos shaqeynayay waxa looga fadhiyaa hay'adaha amniga in ay hor keenaan cadaaladda Saadaq Cabdi Jabbaar Umar Xuseen waxa la soo xiray sanadihii 2015 waxa uu iska diiday dhammaan eedaha loo jeediyay xilligaas laakiin waxa la soo qabtay isagoo faraha dhiig ku leh gacantana weli ku haysta bistooladii uu nolosha ugu aqoonsaday marxuum XW xooga Maxamuud Xasan Ibraahim 31 bishii saddexaad 2019 todobadii iyo 11 bishan ayaa loo kala fariistay fadhiyada dacwadda loo haysta 4 eedeysane
waxaana xilli hore maalintan xukunka ay ka soo saareen heerka koowaad ee cadaaladda u akhriyey warbaahinta guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare xasan cali nuur shuute. sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in 4 eedaysane ay wada yihiin dembiilayaal gale dembiyada lagu soo kala oogay waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay: 1 dembiile shabaab shucayb cabdulaahi maxamed dil toogasho ah. 2 dembiile shabaab saadiq cabdijabbaar cumar dil toogasho ah. 3 dembiile shabaab maxamed cismaan axmed xabsi daa'in. 4 dembiile shabaab ismaaciil maxamed aways xabsi daa'in. ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan. wabilaahi towfiiq. cabduqaadir ciise, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.